السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعشريني إيا كسو دواشا ونكسن وحن لنا إن شاء الله تعالى عشرين حسابنا كومبوزيشنكي دib noogu bilowday asxaabta qaar waxaan maqlayaa inay codsadeen insha Allah taala inaan grammarka ama naxwada aan ku soo daro insha Allah waan ku soo darayaa cashirka waa xogaa tijaabo ah laakiin insha Allah waan tixgelin doonaa dhammaan dalabyadiina insha Allah taala markaas si wanaagsan hayla socod leh fadlan waxaan wax yar aan ka hor dhici lahaa dadka qaar markay subscribe dhahaan mar labaad ayay ku celiyaan haddana subscribe kale bal ma aqaan saaray dhahan subscribe marka hadii mar intaad saarto mar labaad haddana aad ku celiso ama cashir kale waxa aad mar labaad ku celiso dib ayuu kaaga noqonaya marka hadhow cashiradii ma helaysid marka subscribe ka fadlan waa hal mar qofka markii uu ku cusub yahay channelka marka ugu horeyso uu arka ayuu subscribe dhahaa oo meesha subscribe lahay ay gududan tahay kalarkaas uu guduudka yahay mar labaad marka hadii qof uu ku celiyo waa ka kacaya oo ka saarmaya unsubscribe buu noqonaya marka insha Allah taala arintaas laga digtoonaado mar un haduu cashir qofkii ku cusub ma subscribe dhahay insha Allah taala aan bilaabana cashirkeena good morning to are you my customer? Yes, I am your customer. How do you see the lessons I am uploading into my channel these days? I see they are very interesting and useful for the English learners, especially the Somali speakers. How do you see my steps, especially the level of the lessons, the way of my explanation, and etc.? To my idea, everything is alright and everybody will talk about his or her view. Is there any advice you give us, or if there is any error you may correct us? Yes or no? Blah, blah, blah. What are the benefits of such lessons? Such lessons have much benefits because you can learn English in your room without exhaust. Do you share the lessons? If yes, why do you share? Yes, I share every time because the later teacher will have more customers. Okay, thank you everybody. waad mahadsantiin cashirkeena maanta waa cashir aad u xiiso badan oo dhex maraya sida in kaga muuqata macalinka cashirka qoraya iyo macaamiisha dabcan xoogaa sir ayaa ku duugan oo dabcan macalinka wuxuu fiirinayaa bal sida ay dadku u arkaan cashirka wixii matalan oo baahi oo la qabo matalan isbedel oo macalinka uu sameyn lahaa qaabku cashirku u baxay inuu macnaha hab loo bogay yahay kale bal dabcan waa su'aal ayaa ku duugan marka adinka ay la jirtaa sida ula socda conversation wada sheekaysi wanaagsan. Okay, good morning subax wanaagsan. Good morning to subax wanaagsan oo kale. Are you my customers? Are you my customer? Macmiilkayga are you adiga miyaa tahay? My customer macmiilkayga ma tahay? Are you adigu miyaa tahay? My customer. Yes, ayuu yidhi I am one ahay. Your customer macmiilkaada ayaan ahay. How sidee do you adiga see aad u aragtaa the lessons casharada I'm uploading aan ku soo dejinaya ama aan ku soo guurinaya into my channel janaalkayga ama kanaalkayga halkaana these days maalmahan. Uploading asalan ereyga wuxuu ahaa load waa rarid, abtina way sii xoojisaayo upload waa rarid asal ahaan in wax la soo raro weeyaan. marka computerka waxbarka aad wax ku soo shubaysa channelki ku shubidaas ayaa oo intaad banaan ka soo qaado asaga aad soo gelinaysa upload waad ku raraysa. marka uploading aan ku soo raraya weeyaan ama aan soo gelinayo ilaan load marka upload asal ahaan waxay ahayd markay banaanka joogta rarid bay ahayd marka halkaas loo adeegsanaya insha Allah taala. How do you see the lessons casharada I'm uploading aan ku soo raraya ama aan ku soo guurinaya
into my channel kanaalkayga these days maalmahan. I see waxaan u arkaa they ayaga ah inay yihiin very interesting kuwa aad u xiiso badan. Very aad interesting xiise and useful haddana muhiim u ah. Useful muhiim u ah for the English learners dadka Ingiriiska baranaya. English waa luqadii, learner-na waxaa waaye qofka baranaya weeyaan. For the English learners especially gaar ahaan the Somali speakers kuwa Soomaaliga ku hadla. Somali speakers yaa waay dadka Soomaaliga ku hadla. Speaker waa qofka luqada ku hadlaya weeyaan. Somali speakers dadka Soomaaliga af Soomaali ilaa ashirka wuxuu ku socdaa af Soomaaliga ku socdaa marka Somali speakers ayuu muhiimad gaar ah u leeyahay. How sidee do you adigu see aad u aragtaa my steps tillaabooyinkayga especially gaar ahaan the level of the lessons heerka cashirada. Level waa heerka of the lessons cashirada lagu wado and iyo weliba the way habka of explanation ee sharaxaadayda. The way of habka of my explanation sharaxaadayda and etc wixii la mid aba. To my idea ani fikirkayga. To my idea ani fikirkayga. Idea waa fikrad. Everything wax walba is alright way hagaagsan yihiin. Everything is alright waa sax way hagaagsan yihiin. And everybody qof walbana will talk wuu ka hadli doonaa about wax ku saabsan his or her view. His manaha his view fikirkiisa oo amase her view hadday wiil yahay waa his hadday gabar tahay waa her. Marka his view aragtidiisa her view aragtideeda saas weeyaan. Qodobba marka waa adigu waa. Is there miyuu jiraa any advice wax advice oo waana ama tala ah you give us aadna siinaysa oo amase if haddii there is uu jiro any error wax khalad ah. Error waa khalad. You may correct us oo aad naga seexlayd. You may correct us aad dib nooga seexlayd miyuu jiraa. Correct waa dib u sixid. B ayaa yidhi yes ha oo amase no hadba kii ku furan markaas. Yes bababa no bababa adaa laga markaas warka qofka hadda suu fikirkiisa u yahay. Okay saas ku jaabaysaa. To my idea fikirkayga everything wax walba is alright way wanaagsan yihiin and everybody qof walbana will talk wuu ka hadli doonaa about his or her view. His mana view aragtidiisa. Mana viewgaas waa aragtida oo her view ama aragtideeda. Is there any advice wax advice ama tala ah ma jirtaa you give us aadna siinayso oo amasane if there is hadduu jiro any error wax error oo khalad ah you may correct us oo aad dib nooga saxi lahayd. B ayaa yidhi yes bababa no bababa adaa markaas buuxsanaya. Mathalan qofka wuxuu leeyahay yes hadduu dhaho waa kasaga fikirka asaa iskale. No waa kaasa. What are the benefits waa maxay faa'iidooyinka of such lessons cashiradan ay leeyihiin. B ayaa yidhi such lessons cashiradan. What are the benefits. Benefit waa faa'iido. What are the benefits waa maxay faa'iidooyinka of such lessons cashiradan noocan ay leeyihiin. Such mana noocan. Such lessons cashiradan noocan. Such lessons cashiradan noocan have waxay leeyihiin much benefits faa'iidooyin aad u badan. Much mana badan wada hore usoo marnay benefits because maxaa yeelay you can learn waad baran kartaa English Ingiriisiga in your room qolkaaga ku baran kartaa adoo gurigaada iska jooga without exhaust adoon waxba daalin. Exhaust waa daal. Without exhaust adoon daalin ayaad baran kartaa. Such lessons have waxay leeyihiin much benefits faa'iidooyin badan because maxaa yeelay you can learn waad baran kartaa English Ingiriiska in your room qolkaaga without exhaust waa adoo macnaha wax daala aanan samayn. Do you share ma qaybisaa the lessons cashirado macnaha share ma dhahdaayo ma kala dirtaa ma kala qaybisaa. If yes haddii ay haa tahay why do you share maxaad u qaybisaa u share garaysaa sabab. B ayaa yidhi yes ha I share waan qaybiyaa
every time xilli walba waan share garayaa manaa dadkan ayaan la wadaagaa because maxaa yeelay the teacher macalinka will have ayaa yeelanaya more customers macmiil badan ayuu yeelanayaa. Okay hagaag, thank you waa mahadsantiin everybody qof walba, thank you waa mahadsantiin everybody qof walba, aad baad u mahadsantahay. So when we come back to the lesson again, there's no so more difficult here. Upload waan kuu sheegay waxaan ku rahay load ayaa asalka ahayd hore waa rarid. Upload marka waa ku soo rarid way shayga inaad wax ku soo rarta yaa saarid ama rarid baa la yiraahdaa. Marka waa hadda qaabka waxa loo adeegsaday markaad kanaalka aad wax soo gelinaysa that means waad ku soo raraysaa. Okay, muxuu ahaa interesting, xiisa badan, useful, muhiim ah. What else? Learners, especially English learners, Somali learners, Arabic learners. That means qofka wax baranaya, yeah, dadka English baranaya, Somali kuwa baranaya, Arabic markaad leedahay English learners, Somali learners, Arabic learners, something like that. Especially gaar ahaan the Somali speakers maahay qofka Somali ku hadlaya weeyaan. Somali speaker, English speaker, Arabic speaker, saasaa leedahay mana speaker kii wax ku hadlaya warkaas luqada ku hadlaya. Steps waa tilaabada. Steps waa tilaabada waxaad leedahay how do you see my steps? Manaa tilaabada aan qaadaya, especially the level of the lessons, heerka cashirka, the way of my explanation. Explanation manaa waa sharaxaad, qaabka aan u sharaxaya haday مثلا ku qanaysa haday ku qanin you have an idea. To my idea everything is alright and everybody will talk about his or her view. So view maawe waa aragtida qofka soo wax u arka. Is there any advice? Advice maawe waa talo. If you have advice ama waano, that means you say well just same. You give us if there is any error. Haduu wax error jira ama khalad, you may correct us. Dib aad noo saari correct or yes no. What are the benefits of such lessons? Waa maxay benefitka ama faa'iidada of such lessons ay leeyihiin? Such lessons have much benefits because you can learn English in your room. Sida noocan oo kala benefits waa faa'iido. Such waa san mana san way such lessons sida noocan oo kala way such learn English in your room. Qolkaaga aad jooga aan waxba dhib marin without exhausting mana wax exhaust marin dal male meel ma aadin guriga joogta xafiiska ku jirta. So waa very simple and waxa way waa aad bay mana helpful way. Why do you share? Ma qaybisaada share waxa way asalan af Soomaaliga share waa wadaag. Ana markay ilmaha way hore wada cabi jireen maxay sameyn jireen mana dabcan hal weel baa مثلا wax loogu shubaya kan mar buu ka banaya that means wadaag baa wada qaybsi waa share. dad مثلا qof aad dar kala xirataan oo kale waa that means wax isla qaybsastaan share. raayig ma cunaysan iyo share marka waa share waa wadaag af Soomaaliga waa kaasa share wadaag ayaa Soomaaliga lagu yiraahdaa wadaag. The lesson marka dadku ma la wadaagtaa that means you share the lessons. Cashirada dadku ma la wadaag ma wadaajisa oo ma la qaybsa. If yes, why do you share? maxaad u wadaajisa marka? Yes, I share every time because the teacher will have more customers. Saga macmiil badan helaya marka saas oo ugu yeelaya. Okay, thank you very everybody. Qof walba ku maasantahay. Fadlan intaadan cashirka muxuu ka bixin wixii fikra insha Allah taala halka hoose ayaad noogu reebi kartaan. Thank you very much indeed. Dhegeysi wacan. Welcome.